top English for you iyo Dr. Alice English lessons. And videogan wuxuu la socyaa videogii hore qaybta grammarka lagaga hadlayay. Hadda waxaan ku qaadanaynaa cashare grammarka loogaga hadlay wax based on loogaga dhigay ama sal loogaga dhigay. Waxaan qaadanaynaa insha Allah adverb of frequency, positive ka he she it, su'aalaha diidmooyinka. Soo dhow subscribe ka iloobin channelka way caawinaysaa. A day in the life of Ikran, maalin nolosha Ikran ka mid ah. A day in the life of Ikran. Ikran marka waxaan leenahay she gets up, waxay hurdada ka toostaa at 6 o'clock, 6 ayay ka toostaa, and she has a shower, waana ay qubaysataa. Waya she gets up at 6 o'clock, 6 ayay hurdada ka toostaa, and she has a shower, waana qubaysataa. Okay, she has breakfast, way quraactaa at 6:30, 6 iyo qadar 30 daqiiqo ah, and she leaves, waxay ka tagtaa home xaafadda at 7 o'clock, 1 saac ayay ka tagtaa, and she cycles, biskiil ayay wadataa to work, shaqada. Okay, she has lunch, way qadaysaa pasta and fish, pasta iyo malay ay ku qadaysaa at 12:30, qadar maxaa ah 6 saac iyo bar. Waayahay she always works late, she always works late, markasta way shaqaysaa. She leaves way baxdaa, waxay ka tagtaa the hospital, isbitaalka ay ka shaqayso at 7:45, at 7:45. Okay, 1 saac 45 daqiiqo. Sorry. She sometimes buys, marka qaar waxay iibsataa Chinese takeaway, cunto Chinese oo hore safari ah, and eat at home, xaafadda ay ku cuntaa with her brother, iyada iyo walaalkeed Ahmed lagu magacaabo. She has dinner, way qadaysaa, she has dinner, way cashaysaa at 8:15, maxaa 2 saac ay rubi, and she never goes out, weligeed banaanka ma aado in the week, isbuuca gudihiisa. She works for her examskeeda ayay ka shaqaysaa until ilaa 10:30. She always goes to bed, markasta waxay jiifataa, at 10:45 ayay jiifataa, ama 4 saac iyo 45 daqiiqo, and watches, waxay daawataa TV or reads a book, ama book ayay akhrisaa. Okay, su'aalo marka iyo jawaabo iyo negatives casharkan ku saabsan bal aan aragno. Okay, questions and answers, su'aalo iyo jawaabo. Okay, number 1, when does she leave home, goormay xaafadda ka tagtaa? When does she leave home, goormay xaafadda ka tagtaa? She leaves home, xaafadda waxay ka tagtaa at 7 o'clock, 1 saac ayay ka tagtaa. 2, does she go to work by bus, shaqada bas miyay ku aadaa gabadhu? No, maya, she goes to work by bike, biskiil ayay shaqada ku aadaa. Number 3, where does she have lunch, halkay ku qadaysaa? She has lunch, waxay ku qadaysaa at work, meesha shaqada ayay ku qadaysaa. Number 4, does she usually work late, markasta miyay xilli dambe shaqaysaa? Yes, she does, way shaqaysaa every day, maalin kasta ayay shaqaysaa. Number 5, does she eat in a restaurant, maqaaxi miyay wax ku cuntaa? Waxaan leenahay no, she doesn't, maya. Okay, she eats at home, xaafadda ayay wax ka cuntaa. Why 6, what does she do in the evening, habeenka maxay qabataa? Okay, she works for her examskeeda ayay ka shaqaysaa. She never goes out, weligeed habeenka ma baxdo. Way halkan waxa ku qaadanaya negative see loo sameeyaa ama diidmo. Way waxaan leenahay she, number 1, she doesn't live in New York kuma noola. Number 2, she doesn't drive to work, shaqada gaari uma kaxaysato. She doesn't work in a school kama shaqayso. She doesn't visit friends in the week, isbuuca gudihiisa saaxiibo sooma booqato. 5, she doesn't go to bed late, xilli dambana ma seexato.
Okay, marka la hadan ku celiyo, she doesn't live in New York. New York kuma noola. She doesn't drive to work. Gaari uma wadato meesha shaqada. She doesn't work in a school. School kama shaqeyso. She doesn't visit friends in the week. Saaxiibo ma booqato week gudihiisa. She doesn't go to bed late. Xilli dambana ma seexato. Okay, conversation kale ayaan jag ku siinaynaa marka. Kani waa talantaali, waa wada sheekaysi laba qof oo su'aalo isweydaarsanaya waayahay Tamiim and Amira. Okay, Tamiim wuxuu yidhi evening Amira, habeen wanaagsan Amira. You look tired, waxaad u muuqataa qof daalan. Amira waxay tiri I'm fine, waan fiicana thanks, just busy as usual. Waxoogaa waan iska mashquulshanaa sida caadiga. Tamiim wuxuu yidhi you always busy, mar kasta mashquul ayaa tahay. You work too hard, si adag ayaa u shaqaysaa. Amira waxay ku jawaabtay ayda Amira ayaa laga soo gaabiyey, tiidana Tamiim. Okay, I know, waan ogahay, but I love my work. Laakiin shaqadeyda ayaan jeclahay. And I have exam soon. Kol dhowna exam ayaan leeyahay oo exam ayaa ii socdo. Waayahay, I love my work too. Ani xataa shaqadeyda waan jeclahay, but I sometimes relax. Mararka qaar waan nastaa. And see my friends. Saaxiibadeydana waynu is aragnaa. Relax. Nasasha. You play cello every day. Maalin kasta cello ayaad ku cayaartaa oo ah qalab music nooc kamid ah. Waayahay, waxaan leenahay Tamiim wuxuu yidhi yes. Okay, I have a drink with my friends. Saaxiibaday ayaan cabitaan la cabaa at the weekendiga. You never stop. Laakiin adiga weligaa shaqo ma joojis. Amira waxay tiri that's not true. Warkaas dhab ma aha. We sometimes share Chinese takeaway. Mararka qaar Chinese takeaway ayaynu wada cunaa. Oh, Tamiim. How's your friend? Tamiimow, saaxiibka, how's your friend Liibaan ka waran? Sidee yahay saaxiibka Liibaan? He's fine. Wuu fiican yahay ayuu yidhi. Thanks, waa mahadsantahay. He always asks about you. Mar kasta oo ay kaa weydiiya. I think he likes you. Ni waxaan u maleeyahay inuu ku jecel yahay. I think he likes you. Waxaan u maleeyahay inuu ku jecel yahay. Amir waxay tiri Liibaan is okay. Liibaan waa caadi. I like him. Waa ka helaa. Waan jeclahay. He is a friend of yours. Waa saaxiib adiga aad leedahay. Okay, well, come and meet us. Kaalay oo noola kulan at the cafe. Meesha biibitida nogula kulan. Okay, I can buy you. Waxaan idin iibin karayaa a drink, cabitaan. Really? Xaqiiq miya? Okay, that is a good idea. Waa fikir wanaagsan. What about next Friday? Jimcaha soo socda ka waran? Yes, great. Way fiican tahay. I often see Liibaan. Mar kasta Liibaan waxaan la kulmaa on Friday. Jimcaha. Good. Waxaan leenahay ayda Amira ayaan ka soo gaabiyey. Then, it's a date. Xilligaas ayaa xilliga aan balansanahay. Thank you very much. Videoga haddii ku soo gaaro saaxiibka gudbi. Cid allaale ciddu anfaca is leedahay waxbay u tari casharo English oo si nidaamsan ku socda oo buugaag tayo leh laga soo qaaday. Haddii aad buugaagtaas wax ka baratana waxaan rajeynayaa inay kaa caawin doonto, kaa saacidi doonto. Thank you very much. Fadlan subscribe